السلام عليكم. سلام بعد جد وحان سلام يا جماعة مهان كسوقيب كشيء علوم له عام له هوان له ولا له هي يا سلام يا سلام بعد جد الله نقدقه الله نقدقه وحي مارك يا توفيقه وعن توفيقه وحمد تران توفيقنا وفجر وحي توفيق الله نقدقه وحي تلا الله نقدقه أو تلقينا نلقبه عذر مله مقعافة مات بلايا مله باسوك مله إسنع مله إلهي ويدين كيس شولان شرقر هيركينا ما هنا هانت النبي هيقاقون هبي رغن وعاسو مدعليها انت ماركت يا نبدي أمد النبي محمد ومهان كسو غيب قشي ee maaragtay qaymaha noo yeeshay ee aan korkeeda nageysay waa mahadsan yihiin muraadkoodana Allah sahlo anigana waxaan leeyahay dalka waa u dhalay imaad mihi saasna waa loo og yahay ka bacdi hal qowlaan saleeyahay inaan dalkayga daafacoon حلك لجو ديبي سيدا واركتا معناه حلك لجو إجمدي بل هاي سيدا واركتا حلك طولك فوق إجمدي سيدا واركتا سيدا واركتا حلك وحانو أركا حلك وحانو أركا إن لا يلقى الله أنا نجوب جيو أنتي ديبتنا أنا كوجو مهد علشو ساسي إلى تاي باهيها طولك أي أباهي سيدا واركتا محاكو سكرين دونتا وهذا هذا كوكو شيء الله أعلم بس نيدي ده وحي كجرو إن طولك كرو قاضو أخربه كرو قاضو أنا أسجر شو أنا وحي وكوب بحشو وركيجي وحليف كي وكوب بحشو أنا كسي إحنا كتلجرة رجال هذا ما هي إن حلك اللي وما هي لكن تلقيها إلى جعلادي بناك اللي جاي كل اللي قاضي وأكون هالسيهين أنا وحنا نسكت يا إن المال مرسي وقدام بين تلقاقي كم مقعبة يكون قرب تاجن ما لقي أبا سيدا يكون قرب تاجين أدين نقرب إلا أنت سوق شو هذا كمتها وحنا جعل هاي إن كل قاض أركو هايا إنه نن لجعل هي إنه نن واحد دفاعي كريه هي إنه نن عيدا لحريري كريه هي إنه نن دولة لحريري كريه هي شعبي أنا كاشف كيس بواي ولا حريري كريه عوية ماله حلك اللودي بي مثل هذا وكسر مركب وحال الربا حلك اللودي وكسر بحكي حلك اللودي ما كسر بحكي أساس الوسو حلك اللودي بأسلو بك بحجره صح السجون نيره oo dhalinyarada hogaamiyo oo ka bixi jiray hadda maadaama garabkaaga taagan hadlaan hay wuxuu ba noqday muga macallin weyn hadda maadaama garabkaaga taagan yahay maxaad baaqa u jeedin lahayd waxa la wixii la su'aal waa ka jawaabi kariyaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hay haweenka Soomaaliyeed iyagana gaar ahaan duubka macnaha ka soo qayb galay xafladda loo sameeyay ama munaasabada kooban hal iyo laba aan weydiiyo hay bal aragtidaada ani aabahay waaye Cabdulmaha Xasan Eybakar haye waa la doortay in la oo xilkiisa ee walaalihiisa ay guntiisa ay doorteen intaasaan iskugu nimaday waan u mahadceliyaa walaalahayga muslimiinta oo maanta soo booqday mar laba mar saddexdan iyo mahad goobta lagu qabtay waxa la yiraahdaa warji waxa la yiraahdaa arfid goobta lagu qabtay arfid shiidley ha tadacda arfid ila balcad marka hadda shaqayn doontaan duubka waxaan ula shaqayn doonaa si daacad ah anigoo Firdawso Sheekh Maxamed Sheekh Maxamuud Cadow waxa aad u taageersanaa nabadoonka maanta la doortay Cabdulmaha Xasan Eybakar ay waayahay nabadoonka la doortay isla markaana macnaha la doortay goobta lagu doortay iyo magacaaga bal magacayga waa Firdawso Sheekh Maxamuud Cadow halkee lagu doortay waxa lagu doortay Abrona Gaab Shiidley waxa doortay qabiilka Beesha Mataa Cabdulla sababta loo doortay maxay inuu nabadoonnimo u qalmo waayahay marka
maadaama la doortay haweenkii maadaama tiin maxaa marka ka codsan aad iyo aad aan u taageerayna waxaan ka codsaynaa in xilka loo doortay oo si habsami oo u qabto macalin maxamuud cumar xamarey oo ka mid ah ka soo qaybgalayaasha duubka cabdulla maxaa xasan malaas oo lagu duubay degmada balcad macalin maxamuud xamarey ayaan ka wareysanaynaa sidee u aragtaa xafladii quruxda badan ee idinkugu qabsatay maanta halkan xafladda maanta waxaa aad ugu bogaadinaa u maraya inaa meesha oo madaxtooyada joogo maanta u malaynaa beesha Soomaali weyn waxa uu sheegay nin anfaca meesha inaa ku duubno anoo culamaa u diinka degmada balcad matalayo oo macalin maxamuud xamarey la yiraahdo ma sha Allah waxa ummadan uu sheegaa nin badbaadi karo inuu ninkan yahay oo Ilaahay u doorto annaka u dooranin macalin colow raaga shuqaale oo ka mid ah ka soo qaybgalayaasha duubka lagu duubay malaaqa duub maxaa xasan cabdulla maxaa xasan Bakar oo ka dhacday degmada balcad macalin soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الكرام ولا ليال وان كفر حسن الدقة حاجة لو دوبا لو يقال ملاس إن ملاس عبد الله ملاس وان كسر دويا ولا له هيدنا وان دوبنا عوي معنا أهورد كأوجدني وان كسر دويا فرحة وين وناك بدن وكوجينا نبضون صالح مع عبد الله أو كمد كسوق بجلاشة إن مع العباس نبضون صالح مع العباس نبضون كسر دويا صوم تي في يا ديانو دوهاي xaqiiqdii dareenkayga lama qiyaasi karo sababtoo ah waxaan helayaa garbeyga ka mid ah ee u baahan in dadka iyo deegaanka ka soo baxo nabadoon cabdulla maxaa xasan Bakar malaasay waa nabadoon u baahan beeshiisa waa nabadoon u baahan dadkiisa sababtoo ah waxaa jira qulqulatooyin badan oo beesha ka dhashay kala jirto marka sidaas laaligeed waxaan kula talinayaa nabadoonka in dhibaatada ka dhex jirta beesha uu ka dhashay si habsami leh hantidiisa iyo maalkiisa ugu bixiyo waxaana kula talinayaa wanaagga inuu ku soo horseedo beesha uu ka dhashay saalax cabdi cumar oo ka mid ah asagana ka soo qaybgalayaasha xafladda lagu duubayay nabadoon cabdulla malaas oo ka dhacday degmada balcad kusoo dhawow saalax waa dhawahay waxaa u mahadceliyay horta alla weyn oo uuntay koonkaana keenay ma hadda kale waxaa iskale idaacadda oo timid meeshaan som tv oo soo bannaan baxday in lagu duubo meeshaan nin odaya oo awal hor u duubnay haddana maanta ayaga soo qayb galeen ma haddaasna alla u celiyaa ayaga waa mahadceliyaa aad iyo aad dhankayga bidix waxaa taagan nabadoon cabdulaahi abuukar oo ku magac dheer faras ku soo dhawow som tv Soomaaliya salaanta muslimkan ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inuu mataqaanaa waxbarashada caafimaadka iyo adeegyada bulshada ka maqan oo ku soo siyaadiyo maadaama aanu kaanan lahaynin isbitaal xarun caafimaad iyo goob waxbarasho intaba nabadoonka waa salaamaynaa kulli ka soo qaybgalayaasha aad iyo aad ay u mahadsan yihiin boqolkiiba boqol salaan kadib waxaan kula dardaarmayaa waxyaabaha naga maqan oo adeega bulshada inuu nooga jirsho dawladda Soomaaliya iyo meelaha laga heli karo hay'adaha nabadoonka waa ku faraxsanahay waana ka soo qayb galnay waana ku mahadsan yahay boqolkiiba boqol raxiim anigoo cali cumar maxamuuda waxaan aad iyo aad u taageeraa nabadoon cabdulla maxamed xasan loona duubay beesha gacli Bakar waxaan aad iyo aad u soo dhawahay duubkiisa waxaana diyaar u nahay anagoo la dhasho walaalihiisa oo beesha xeyle Bakar inaan la shaqeyno garbi gaashaan u noqono walaalkeena cabdulla maxamed xasan waxaana uu sii dardaarmaa walaalkeen maxamed cabdulla xasan Bakar maxamed dheer maadaama waqti talafuu ku jiro inay heshiiseen nabadoon u duubneen duubkii ka dambeeyay cadaay maxamuud cumar allah u naxariistay oo sanadka hore dhintay wixii ka dambeeyay duub looma sameyn adeer cabdulla waxaan ka rabnaa inuu beesha isu keeno duubna uu sameeyo hadduu allana subxaana watacaala nabad noogu yeelo wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkani waa gobolka shabeellaha dhexe ee dhaca degmada balcad waxaa lagu qabsoomay xafladaas oo aad u qurux badan oo ku duubanaya beesha mataan cabdulle ay ku duubanaya malaaqooda cabdulle maxamed xasan Bakar oo loo yaqaan malaas ay ku duubteen maanta cabduqaadir xasan cali som tv balcad